markay halkan kalxamaha timaada naftu waqiila marraaqi ila ila wariyaada weeya wariyaade wal xageena wala carana naftiba hayse hebel dhakhtar inoo doona hebel baa la keenay hebel kala la keenay mid waliba saas u eego wuxuu yiri meeshiisii ku celiya kana waxba uma qaban karay wadanna annahu al-firaaq qofkiina wuxuu dareemo ku qancay maanta inuu ka shubayo nin weyn wadkii waa yaqaan والتفت الساق بساق صورك حالة مركه حالة النزع قفك من مركه نفته كسيب حيسمو قال كي لا يبول هاي الباب والتفت الساق بساق لبدي أدينا واسكم مرمين قفك دائم بدنك جوجي وأركياه قار كان بي قفك نفته كصوب حلا لطائف كوحكم إذا علماء آد وفير صدي بحث بان أركيين ولا هاي السبب تهلكا يوصوب حيسو حوي قفكو marka oo arko malaa'igti hadii labada ay dinu fayoobadaan u carari laha sakaraadka malaa'igta warka iyo xanuunka sakaraadka fayb oran laha qof maba la qaban kareenba labada adin buu ilaahay ka jabiyay subhanahu wa ta'ala oo nabi maxamed ba markuu malakul jibriil arkay dawaakii gariiray xagga khadiija u cararay malagii wanaagsanaa buu ka carari gaaray nabigu maxaad u malaynaysaa malagii cadaabka meesha marayana halku ka carari lahaayo cagaha buu ilaahay isugu maray ninka doonaysa inaanu ka firdhan labada adin baad ka toogata wad ka jabinaysa waltafat isaaq bisaaq waxaad arkaysaa bari aanu fiirsanayeen inay naftu ka baxayso ilaa jilibkay ka soo booday iyadoo dubaaxinaysa saa u gariiraysa haddana kadh bay tiri ilaa halka misigta iyadoo saa u socoto gariiraysa haddana ilaa garabka marafraadkiina khaakh buu qofku oo afka ka booday